waxaan isiri barku sii dheeraaday war maanta ma soo bara aad baa ugu mahadsantii waxaan saaka jecel lahay in aynu waxaan saaka jecel in dhibaatadan ka taagan xisbigii kulmiye xisbilxaaka ii ka taagan in aynu gallaantu jecel waayo haddaan shalayto reeriyowga iyo wax dhegdhegaystay waxaad mooddaa si degdega xawli kulul waa wax ku socdaa balaadana waxay leedahay daaman la qabtee daba la qabto mala baynu ku maamaaji inaynu xilkeeda qaadanno arrintaa wixii aynu ka qaban karno in aynu gudagalno dabinno wixii isu soo dhoweynahaana aynu ka qabanno waayo xisbigii qoodmaaba waa dhaawac ku yimi qaran xisbigii udub waa ogeydeen si nacasnimuu inagu dhaafay xisbigii ugu weynaana de waa khasaare qaran weeye maaha uun udub maaha waa khasaare qaran weeye maantana xisbilxaakimkii iyagu markaa kursiga kumaba fadhiine xisbilxaakimkuna ka sii daran markaa waxaan jecelahay inaynu arrintaa gudagallo guddina u saaro guddi u saaro haddii aan naga aqbashaan waynu ballansan ii kaadaysa waarigadda waar bad ha igu furin kow maantoo kale waxba looma yaryaraystee guddi ballaadhan baynu saaray guddi ballaadhan nin waliba ninku ka weynay uu xulayna nin waliba ninku rag yaryar oo dhallinyaro ah oo firfircooni waa jiraan laakiin maanta jilmi culustaynu saaray ruuq culusta soo ma taqaanin ruuq culustii baynu saaray waxaan jeclahay mar haddii aad nala qaadateen in siciid inoo yeedhiyo taladayadii guddida xisbiga guddigu waxay ka kooban tahay 13 xubnood iyo shirgudoonka xubnaha shirgudoonka golaha guurtida kow xaaji cabdi iyaga xubnaha shirgudoonku waa garanaysaa gudoomiyaha iyo labadiisa gudoomiye ku xigeen xubnaha kaleeto waxay ka bilaamayaan xaaji cabdi xuseen yuusuf maxamed aw axmed cawi xuseen axmed nuur riyaale khayre cabdulqaadir maxamed xasan axmed muuse obsiye sheekh maxamuud xirsi faarax cabdulqaadir aw xuseen axmed nuur aw cali maxamed jaamac bokor محمود حرد سليمان قرص سيد يوسف عبد الله عواله واي بابا غشين صومه ليالكم وعلنا